jacaylo qofku dhiban jiradaada la ildaran lix xeeladood oo kuu sahli kara shukaansiga baraha bulshada. inta badan dhalinyaradu waxay lamaanahooda kula kulmaan bogaadin internetka ah gaar ahaan baraha xiriirka bulshada, hase yeeshee badankoodu waxay la'yihiin xirfadii ay guulka ka soo hoyin lahaayeen xiriirkooda noocaasi ku unkumay. marka laga soo tago in baraha bulshada aad u gasho sidii aad jacayl u samayn lahayd, ma leedahay xeeladii kaa caawin lahayd arrintaasi? marka loo eego xogta iyo xaqiiqda baaritaan ee laga sameeyey baraha shukaansiga ayaa lagu ogaaday in 91 milyan oo qof oo isticmaala shabakadaha shukaansiga ee loo yaqaano Facebook iyo WhatsApp-ka. qaybo badani oo ka mid ah dadkaana ayaa la xaqiijin karin taariikhdooda saxda ah. waddanka UK baaritaan ee shirkadda Yogof ku sameysay shukaansiga baraha bulshada waxaa la ogaaday in 10% dadka waddankaasi ay isticmaalaan baraha shukaansiga, halka in yar oo ka mid ah dadkaasina ay kala kulmaan wehel jacayl. haddaba waxaan kula wadaagi doonaa 6 xeeladood oo kuu sahli kara shukaansiga baraha bulshada. kow waxaad ka fakirayso aamin haddii aad ogaatid digniin mar kasta u qaado si dhab ah. waxaa jira dareen ah in laga fakero waa qaladkayga. 2 daraasad dhowaan la sameeyey ayaa tilmaamaysa in markii ay timaado fariimaha la isku diro oo la yareeyo 100 qof markiiba kala hadal online-kaaga sida ciyaaraha aad ciyaarto online-ka waxay kaa luminayaan waqtigaaga. ku bartilmaameedso waqtigaaga aad la sheekaysanayso asxaabtaada adigoo muhiimadda ugu badan siinaya kuwa u muuqda inay yihiin kuwa ugu rajada wanaagsan. 3 xeeladaha shukaansigu waa inaad qabiir ku tahay ugaarsiga goobaha ay ku badan yihiin xulashada qofka aad rabto. noqo qof u shukaansi taga goobaha dadka qiimaha ku leh ay joogaan. shukaansigu waa ciyaar tirooyinka oo kale ah. 4 saaxiibo raadi ugu horeyn. cilaaqadyada ugu fiican waxay dhacaan markaad bilowdo saaxiibtinimo kadibna aad isku beddesho shukaansi. dabcan waxaa dhacda inaad si fiican u barato qofka inta aadan shukaansan. 5 noqo qof dibacsan. waxaad u malayn kartaa inaad og tahay waxa ku soo jiidanaya, laakiin haddii aad xakamayso asxaabtaada ama aad liis badan iska tuurto waxaa laga yaabaa inaad weydid qof muhiim ku ah oo aad jaanis ku raadinaysay inuu noqdo qofka aad tirtay. 6 noqo qof degan oo macquul ah. hal dhibic oo ah barashada internetka ma ahan inaadan lahayn xiriiro caadi ah, sidaa darteed waxba kama ogid qofka kale. barashada dadka kugu barta jaanisyada lacagta ama xiriirada muhiimka aanan ahayn waxaa halis u ah inay kugu horseedaan inaad go'aan ku gaartid tirtirista asxaabtaadii wanaagsaneed ee aad ku lahayd Facebook, WhatsApp iyo waxyaabaha la midka ah. fadlan subscribe saar YouTube channel-kani waxaad ka heli doontaa muuqaallo aad kuu soo jiita oo aad u qosol badan goordhow. ka maqnaan hana moogaan ee fadlan subscribe saar hana hilmaamin inaad